السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta muuqaalkeena waxaan rabaa inaan kusoo qaato 5 su'aalood oo asxaabtana soo weydiiyeen oo magacyadooda kala ah Maya Cabdinaasir Cabdulaahi, Suuxay Wiil Soomaaliyeed, Muxamuud Mohamed, Mohamed Bashiir Biixi, Xasan Cabdi. shantaas su'aalooyin ee asxaabtana soo weydiiyeen oo mataqaanaa fursad aan u helinaan qoraal ahaan ugu soo jawaabaan rabaa muuqaalkan kooban ugu jawaabo. su-aasha koowaad ee soo weydiisay walaasheena Maya Cabdinaasir Cabdulaahi waxay leedahay: assalaamu calaykum doctor, waxaan ku weydiinaa indhaha hareeraha ka cad maxaa keeno indhaha ima xanuunayaan laakiin waxaa moodaa inay hareeraha ka cad yihiin, baliis ii soo jawaab. isha hareeraha ka cad ee loo yaqaano marka arc-retinal markaan waxaa sababi karo in levelka cholesterolkaaga inuu sare u kaco mise nooca loo yaqaano LDL. waxyaabaha kaloo sababi karo waxaa kamid ah haddii aad leedahay xasaasiyad oo xasaasiyadda ay kor ugu kacdo. marka haddii xaaladan aad isku aragtay midda koowaad aad samayn karto waxay tahay in aad exerciseka jimicsiga aad badisid, sidoo kale baaritaan guudna aad martid oo cholesterolkaaga cabirtid in ay cholesterolka tahay in kale. haddii cholesterolkaaga kor u kacsan yahay markaa jimicsiga aad badisid, sidoo kale green tea haddii rabtid wax cabitaan cabis haddii aad jeceshahana in aad green tea oo kale waa cabi kartaa, laakiin muhiimaddu waa inaad jimicsi ka badisaa. cuntooyinka ay ku badan tahay fatiska misaliidana inaad iska yaraysid. haddii xasaasiyad tahayna waxyaabaha markaa xasaasiyaddu ku kicinayo in aad ka fogaatid iyo daawooyinkeeda markaa dhakhtarka kala tashatid. talooyin khaasa ku saabsan indha cuncunka mise xasaasiyaddana muuqaaladeena hore ayaad ka heli kartaa. su-aasha labaad waxay tahay doctor Yaxyaa, su-aal mar dhaweeda kusoo weydiiyey igama jawaabin inaadan arkin macquul. marka saaxiib wata marka hore waa kaa raaligelinayaa su-aasha jawaabta kaala soo dahay. midaan ayaa idinkugu filan oo ah haddii aan su-aashaa soo qaadan mar waa soo qaadanaa. marka xoogaa sabarka badiya asxaabta, aadaan idinkaga mahad celinayaa sida xushmada ku beegan mar walba su-aalin ii soo weydiisiin oo aniga laftirkeyga farxada ii tahay. ookiyaalka 6 bil ookiyaal 6 bilgiisa 6 bil ku go-ayo horta ma jirto unless markaa dhakhtarku ula jeedo in uu follow up uu ka rabo. laakiin talada khaaskan ku siinaa waxay tahay ookiyaalaaga haddii aad fasiix ku dareemaysid oo aadan culays ku dareemeynin marka waa wada kartaa oo wax dhibaato ma lahan. laakiin haddii aad markaa adigoo wata weli shuaca ka dareemi ama si fasiix u arkin marka waxaa la gaar xilligii aad badan lahayd markaa oo cabirka u laaban lahayd dhakhtarka. su-aasha saddexaad Maxamuud Maxamed oo na soo weydiinayo waxay tahay: doctor, isha dhinaca ka jaraysa maxaa sababa? isha dhinaca ka jaraysa mise loo yaqaano eye twitching badanaa waxyaabaha sababi kara waxay u badan tahay in markaa daal jiro, marka qaar welwel stress jiro, ama haddii kafeinkaaga ama cabista shaahaaga kafeynka aad u badan tahay oo kale waxyaabaha sababi kara ayay ka mid tahay. marka haddii daal badan aad dareemaysid isku daal inaad nasiimo badan samaysid, biyo cabista badan aad badisid, insha Allah xaaladan waa ay ku day doontaa dawaal kale. waxay leedahay Mohamed Bashiir Cabdulaahi soo weydiinayo: doctor, waxaan ku weydiinaa ma jira cabir guud oo lagu ogaan karo nuqsaan ama siyaadada indhaha oo loo isticmaalo haddii jiro magaceed ma ila wadaagi kartaa doctor? midda kale always waxaan isticmaalaa shaashada tel maba computerka, maxaad uga talin lahayd ama fiideo hore aad usoo duubtay mahadsaned in badan. horta midda koowaad waxay tahay haddii cabirka aragga la yidhaahdo iyo baaritaan guud markay tahay kale laba ay kala tahay oo micnaha eye test iyo comprehensive eye exam ay kala yidhaahdaa. haddii cabirka keliya ay tahay marka laba nooc oo waxaa jirta oo nidaam la isticmaalo oo ah objective iyo subjective u ah. marka qaar xataa tusaale ahaan canug yar oo kale marka lagu keeno muhim ma aha marka qaar chart inaad weydiisid xaguu ujeedaa. waxaa jira mashiin loo isticmaalo sida retinoscope oo kale, ama marka qaar waxaa la isticmaali karaa autorefractorka markaa lagu ogaan karo qofka araggiisa. xitaa marka qaar inta badan qofka marka araggiisa la weydiina waan naqaana waa ognahay araggiisa sidoo yahay. dadka qaar waxaa jirahda meninges oo ah isku dayayaan mar qaar in ay ku siraan ama u haysta inay ku sirayaan, laakiin dadkaasna waxaa leeyahay waa ogsoonahay. marka haa wuu jiraa oo marka xataa adigoo mataqaanaa lagu weydiin halka ujeedo markii computer mise lagu isticmaalo mashiinka loogu talagala cabirka si toos ayaa loo ogaan karaa, dhakhtarka indhaha u ogaan karaa heerka araggaaga uu yahay. oo waxaaba daliil ku ah marka qaar waxaa arkaysaa canug jiro 1 sano ka yar in mar qaar ookiyaal loo qoraayo oo waa la ogsoon yahay heerka araggiisa uu taagan yahay. midda ah shaashadahana muuqaal hore oo waxaa jiro difaaca shaashadaha iyo talooyin ku qusan oo muuqaalkan halkan aan soo dhigayo
linkiga aad ka heli kartid ama shaashadda aan halkan aan soo saaray. Su-aasha ugu dambeyso doctor, waxaan habeenadan isku arkay markaan dhafro camal ama markaan soo tooso waxaan dareemaa in isha waxyar iga jaan mana soo bixi kari ishada markaas isheeda markaas si fiican aan u eegana waxaan ka shakiyaa barta madow. waa xaalad jirta oo loo yaqaano markaa foreign body sensation ama qofka in uu dareemo ishiisa wax kaga jiraan oo kale. taasna waa calaamad ku tusi karto in isha xoogaa yar qaleel uu jiro ama dhafarka sidaa sheegto waa calaamad ku sheegayso. isha markaa qaleel yar ee dareemaan oo kale waxaad dareemaysaa in isha wax kaaga jiro laakiin wax sax kaagama jiro. markaa talooyinka markaa qofka aan loo soo jeedin lahaa waxay tahay markaa in ilbiriqsiga uu badiyo ama haddii mar walba aad ay ugu soo badanayso markaa xataa goojoy markaa wuxuu isticmaalay lubricant eye drops-ka nooc walba ha ahaato ama dhakhtarka indhaha la xiriiri karaa. laga yaabo qofka inuu indha qaleel leeyahay oo kale haddii mar walba kugu soo laabanayso ku daa markaa dhakhtarka indhaha inaa u tagtid laakiin wax ishaada kaaga jira ma jiraan. intaas ayaan kusoo gabeynayaa 5 su-aalood. marnaba ha ka labeen inaad su-aalaha qaybta commenti ugu weydiisid. ma ogid xilligan kuu jawaabi doono. waxaan idin rajaa caafimaad iyo indho fayow.